isgoyska Mirnaaya ayaa waxa ka bilowday banaanbax xooggan oo markaasi lagu soo jeedo dowladda federaalka Soomaaliya
بسم الله الرحمن الرحيم وأوجدان حلقة أو هبينك ما هذا الرتا هذا ما بلاونا ما تعصوب دوري ماينو isgoyska Marinaya ka socda dibadbaxan markaasi ka dhan ah dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan Farmaajo dadku waxa inta badan ay sheegayaan in ay markaasi si aad ah kaga soo horjeedaan kordhinta waxay wataan barar ka dhan ah dawladda federaalka Soomaaliya مرمانadu waxay rajaanaysaa isna baaga oo sameyn karnaa سفكال بلاري سفكال ديريو سفكال ديريو يلا سعري سفكال ديريو أنا كاسي كم سفكال ديريو واتاي wili waxa soconaya magaalada Muqdisho qayb ka mid ah baxyo markaas lagu soo horjeedo dawladda federaalka Soomaaliya ka dhan ah salaatu wasalaam ala rasuulillah sallallahu alayhi wasallam caawa halkan waxa isku yimid dadka deegaankan degan oo gobolka Banaadir degan waxay ka hadlayaan laba qodob qodobka ugu horeeya waxa waay muddo kordhinta Soomaaliya waxay ku heshiisay dastuuray ku heshiiyeen waa la baalmaray waxa la keenay muddo kordhin ma jirtaan leenahay mana aqbalayna waxayna diidan tahay sharciga aan ku heshiinay Soomaaliya maanta ma rabto burburin iyo dib iyo dictatornimo Soomaaliya waa ka gudubtay doorasho nimankii ka horreeyay kursiga waa u baneeyeen inuu yiraahdo baarlamaanka isku abadhacay baarlamaan dhacay inuu yiraahdo igu dara dictatornimo waa mana aqbalayno dadka gobolka Banaadir degan dad u bislaaday dimuqraadiyadda waaye dictator kastana waxa uu leeyahay koox la talisay tiraa warkaaga waa ruus ayaga waalaayo awalna asiga wuxuu aaminsanaa dictatornimada waxaan u sheegaynaa wal aqbalaa in labada sano waa diidnay aqbalayno beesha caalamka iyo ummadda Soomaaliyeed beesha baaqan u jeedaa baaqaas waxaan waaye ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa in aan diidnay labada sano ku qasashada ah waxaan u mahadcelaa labada maamul goboleed ee la yiri Farmaajo nicbi ma nicbay badbaado Soomaaliyeed Soomaaliya waa Puntland iyo Jubbaland وانا محسنتين لانهي مثل لواء احمد داعيه ومهد علاء وركي حلا او سوجي شو باغاي ومهد علاء من سياسيه او دبها سيغا
قالك كسيدة الصوماليات وعيما ضدك بدبادي لهاي ما كلا قيب سنو فكر بين هذا كلا الأحمرية وعين الصوماليات وعين نول برا وحيد درس شلا وعاب الله وجرى مسال تجانا بالله دوميها كحجي سيارة بالله تجانا بالله مثل بعض سليقة كل جود قفل بهوسه وهلوتان وحق معك صوص عليه وجدا عد والبواد ديتي وادماتي فرماجو وحق قوة لينا والله تندي إمات تندي أفسيوري إمات تذكرك منه أنت سقولة لينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كذا كجرنا حوالي ما تقارنيه تيجي وين خلص عسفير ساعة ميكروفونك يحرق inay diidaan dulmiga iyo dictatornimada iyo dhiigga lagu daadinayo magaalada Muqdisho oo farmaajo dadka suuqyada oo macilinaya waxaan rabaa inaan cadeyno farmaajo waxa aad wadato oo ah ciidanka qaranka Soomaaliyeed ee xilkooda lagu wareejiyay aad qabiil u kala qaybido amaantay ee aad tiraahdo waxa lagu qabiilayn mushaar siimayo waa lagu wada ogaaday farmaajo ciidanka qarankuna ma kala tagayaan kuwa qabiilka oo reebatay xataa wajibadaada ciidanka qaranka ka noqonaya mana la aqbali karo waxa aad samaynayso madaxweynaha xilka ugu wareejiyay ee si sharaf leh ku maamusay gurigiisa ayaa toota ciidan meelad soo weerartay laakiin waxa ku maatan ciidamada qaranka ee yiri aqbali mayno waxa Soomaaliya maanta uu ka bilaabo dagaal qabiil farmaajo oo hogaamiye kooxda cusub farmaajo shaqada lagu weydmaday waad ku ceebowday 4 sano ummadaan ku ciqaabneed maanta lagu ciqaabnaan maayo xilkaagu waa dhamaaday 7 February ku weekend dadka shacabka dhaxgal anigu ku oran maayo meel ma tagi kartid maxaa ku tagay xigba ma haysid sharaftana waa ka dhimato maanta duulada ummadii aad laysay dhiiga dadka aad laysay xal dhiigoodii jidka dhex yaala meydkii baa waran ummadaas adaa baabiye farmaajo maanta waxa la leeyahay ummada dhiiga aad ka daadinayso ka dhaxbax war ka dhaxbax hor dad meel aad rabtaan hadii kala dadka soo dhaxgal haddaad diido midaas aniga waxaan shariiqaan maxkamada lagu soo saari doonaa dalkana lagu daldali doonaa insha Allah ciidamada qarankuna waxay heegan ugu jiraan taliyayaasha saldhigyada taliyaha guud ee booliiska gobolka Banaadir Janaal Saadiq Doon iyo taliyayaasha iyo qaybaha iyo taliyayaasha saldhigyada dhammaantood waxaan ka codsanaynaa inay ammaanka sugaan maxaan ku leeyahay shacbiga badbaadiyaan ay ka hortagaan waxa uu farmaajo u kacay ee ah in la weeraro shacbiga Soomaaliyeed dhiigooda la daadiyo oo uu bilaabo iyadoo Ramadaan ah bal ogaada Soomaaliya waa midowday waa israacsan tahay waa midowday ciidanka beel aan aad u reebatay oo jufadaadana Soomaaliya kamid yihiin hubka aad ku weeraray shacbiga Soomaaliyeed qaranka iska leh jufadaadu ma leh ummadda soo dhaxgal ciidanka ka urursatay mushaar siin ma inay ay waxay bahayn warbaxaas mi aan xilha idin kara waxaas aqbila idin maya ciidamada in mushaarkii markii loo tuuray ee wasaaradda u tuurtay inuu xal hal iga soo celiyo ee dib looga ceshaday bal ogaada waxa uu ku kacayo wax Soomaaliya u dul qaadan karta ma Soomaaliya daqiiqada isaga ka saari karta war hooy war farmaajo ka dhaxbax waxa ku dhex jirto ummadda dhaxgal waxaan kula talinaynaa talo waa diiday talo waana ku soo jeedinay war dalka soo lacagdan nabad ku dawaalan ku dhahnay war dimuqraadiyadda ka soo qayb galaan ku dhahnay war doorasho su'aad baan ku dhahnay war dastuurka raacan ku dhahnay inta waa diid maanta runta gacanta wax la sheegay hadaad diid ma Soomaaliya ma
ما سنتين قدروا انت ما لحد ما ماشي ما dalkan waxa xukumo waa sharci ugu heshiiyay qofna xoolaha ay ku wada sameeyeen ku wada qanacsan yihiin wiilka miskiinka ah ee diriskeyga ay su'aalayo aniga farmaajo weeyba ma leey bixina wallahi inaan la bixin oo billahi la bixin farmaajo ciidanka adiga kuna joogan waa Soomaali kuwa anaga la joogan waa Soomaali mushaarka xalay aan cidisay ee aad saartay maxaa laha blog ah qodob la qaad wallahi wax la qaadan kara maahin لكستيش كنا نقدر بس أنا مقولين هذيك أنا مقولين نفع لون معنا أنا صلاة تمر كنت أقول شيء أنا بس فيريس مدكوات dadkan magaalada dadkooda waxa ku wartay hoteelo madaxweynayaasha weertay diyaarada ku celisay waana aamusanahay qofka caqliga saliimka leh wuxuu la aamusan yahay waana faantaa diiniyan iyo maadiyan ma ogolaan doono waxna lagu qasay dadka kale Djibouti nacaysa Ismaaciil Umar Geelo dalkii Soomaaliyeed ee labaad ana in wala hanoolaado Djibouti hanoolaado باشا عالم كفرماجو ولا هذا شيء هدي أنك عن قرية قادنا وعتري لنا هتقالمنا مدكوات باشا عالم كأنك مقدشين كنا فرماجو كور فرماجو أنك ينبر صح قلنا أنك كنا قلنا هاي وضع يسوت الكذب لكن ما أكل انتقال جوستان مكان مجولا مرة وحسن لو بغض بكرة ناف ماذا حكيت لهم هذا عرضها قلت كور مرة يصدق فرماجو عربه وستكور ماذا حول الله والله بالله تالله وحلق هذا كرمان تكلم محكمة دي ما أنت وعيتاقيه كيسس قبلنا ملك أنك عرن تاقن وكتاك الشقاة تطوق من التاقن محاكوز قريب بالكامل مشاعر مهل هو كانوا دار قلنا أصبنا من الحوينين معو كتابه قلنا لا حول ولا قوة والله يا لقى عبصلو كان مساكين تا اتروا يقولوا ذا الشيء تروا كبلنا مقالا دافع دقن إلا تحيانا بديارو مني يا شيء مصور بديارو مني حتى كده عيالنا ملها وصلنا بسم الله الرحمن الرحيم waxaa saacadana soo istaajiyay waaxad gudubka oo farmaajo dalkan ku haayo waxaan rabaa inaan idin cadeyno waxaan u taaganahay waa ilaalinta sharciga iyo dastuurka dalkan u degan dalkan waxaa lagu kala adkaa karaa sharci iyo dastuur iyo qaanuun iguma kala adkaa karo qol caaradiis waa la soo arkay waa la soo tijaabiyey farmaajo waqtigaaga waa dhammaaday waxaad xaq noogu leed waa kaa dhammaadeen xaq nuguma lihid fillada oo basiibaad ku degantaa caawa sharci kuma deganin oo basiibaad ku degantaa caawa naagaada qabinaad la jiiftay la macnataa oo xaarana annaga qaxin ilmaha iyo naaga iyo carruurta naga qaxin iskoolaadka naga xirin isbitaalada naga xirin iskoolada naga xirin wadooyinka naga xirin dadka hallaynin dhiigga ha daadinin warniyow haddaad muslim tahay fillada ka bax waqtigaagu waa dhammaaday teendhada dalku ha aado xataa inaad hogaamiso teendhada iyo waxaway doorashada xaq u malihid waa kaa dhammaatay sababtoo taa sharcigaa ku tumatay maandhayd malihid waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan u sheego ummadda Soomaaliyeed intii xabad nagu dhici lahayd aan soo baxna annagoo bannaan baxayna hana la dilo guryaha ka soo baxno dimuqraadiyadda iyo sharciga iyo dastuurka aan karu qaadno hubka daran codkaaga iyo rastaasa codkaaga xoog badan waadi soo bax aniga waxay iga joogtaa laamiga inaan istaagna aan ku dhimano diyaaruna
قبلاسي قبل سوكم انت حاله الهي نقبت بعدي هنا ولا حدا سيحنا كقدر راس عرس بلاس فرماجه هدو هذا اللي يلاي داريتي يا للهدلاي هذا ما معمول انا waxaan leeyahay xumii way iska diidnayay isxalli ama isku xaar aday ku taala adoo karaamo leh bax hadii kala bari meena ka bixin inta xamar qas wallahi ma bixaysan darta xumar daaciyo maxal daaciyo ku sheeg xamar hadaa qas ka bacdu waxani adu asab dhimeena leh ma kala heleen adee hatta waqti ay haysta waa bixi kartaa farmaajo xamar hadaa qas ka bacdu wallahi oo billahi oo wallahi ilaada bixin habeenka madaxweynayaasheena xabadaysan hurda igu dambeysaan halaasna waxaan leeyahay ana xabad intaas lagu lama dagaal weysaneen waxa la istaayaan xamar la gubi umadan yaa la baabiin xamar ha noolaato umadan ha ku dhax noolaato hadaadiida nabad daadiida waa kula dirayna waana ku dhabeeyna wallahi inaan kala hereyn ila baxdiis ibna baxdiin xaraan ameerika u naqmaysid qaadima hele soo dhawo بس هذا ماذا؟ صحيح صحيح مركز قبل بسم الله الرحمن الرحيم وشعب الصوماليين قال شعب قبل كبرادر وسقوا بحي بذبح وين عاوة أفريقيا كذب بذبحها والدارية ومرسوم الجنا وذكرني طول سمستين رحمي وقت الماضي محمد عبد الله فرمانو هذه أنا شعب قبل كبرادر مؤمنين متقرنين مؤمنين دجال وفرماجو هرسينا يو وحنقول باقينا ومشينا هيا دولة فرماجة وقت بيسوون ماضي أمرنا كما قال كرتان ciidanka qeybadiisa kala duwan iyo sharciga ciidanka meesha uu gaarsiiyay waa aragteen waxaan ku baaqaynaa haddaan nahay shacabka gobolka Banaadir qof kasta oo shacabka gobolka Banaadir ka mid ah iyo ciidamada ganacsatada kulli inaan meel uga soo wada jeesano muddo kordhinta oo sida sharci darrada ku sameystay madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday waa ogtihiin shacabka gobolka Banaadir iyo guud ahaan Soomaaliya وسط خلطان ودستور كبال مصر وفيدرال كبال مصر وكسو هجاميناي سدح بلاد أيوه هذا وفي الصومالي وفي الرئاسي شرع الرئي سدح بلاد وكشغيناي إنه عيدا كقرن كلا جبيجو ودجال أبورو عيدا كوحو كلا صاري عيدا الملتري وهرب بسناو وحكوت المامي إليهين عيدا قبيل مشاكل وكقصتي عيدا كلا الدولة الصومالي صاحبين صوت كبرين عيدا ما كانوا على صوت شقستيان ودوفاري وحلي هذا من نقانو أبورين وحو صوت فعل وقبصدو دل كان دكتور السجارة وكل غنجلي أصلا أنا هذه أنا شعب قبل كبنادر عشر عياش واديدني عيدا كان حلاشة واديدين عياش صلك يدنا غيبة كمية حد ويكجدودين ويكصوبحين هو دمنا ويديدين ويكإيمان دونان وحنقول باقينا شعب قبل كبنادر لمبر 1 إن عشور تودا كجوستان مركز أكثر هو استاجان سيد إسكاج قبل هاي الدكتاتور كتبر طير في الصومالية سيد شرع الدرجة وكفرديو أنا بحنا رمضان كنتو جرو أفر كسته وحن تاجنا مركز سو أفر نكذب إنا بنا بحنا وعشقنا إنا نقولن مدكرين وحنا جرب تاجنا هاي عيدا كقرن كشرفت الله كجدودي مدكرين تقول سمستي عن كديك لما محمد عبد الله فرماجو هي جرب تاجنا هاي ما الدورين دكتاتور شيب لما الدورين عيدا كان الله شقينا عشورتي أنسين له إن فرماجو هي حكومة وقتها ضمادنا وحن كنت كلنا عيدا ومشاركة كجوستي عيدا كانوا وعاقوا بشارين إن هذا شعب قبل كبنادر مشاركي وحنا قدام بيسوق كل دينا كعشتي أنا يقصوا شبهنا دستور كالدفاع فدرال كالدفاع شعب كالدفاع قرن كالدفاع حتى عيدا إلا تريانا يضرب بدي إنه يراد الدولة قدر ديارتها اللي قبحيها اللي صوتها باشر إثيوبيان كنتم كنا أي وحدة رواية إرتري عيدا كراكن ستر وعلى كم تريان هو حد أمرن حباب السنة أنا قاعد تقولي وحوم باقينا ساعات استئني كاسو تجان هادو إلى يرادنا وكاسو تجايان هبيني مالنا وحوم تجان إلى فرماج إسكسر رسوسنا مهن بنام بحر السعودية مجانا قبيلة كل أيام حد بقاقنا ضبط الشعب قبل كبنادر حد الذي يسرى الله كما قد دعونا يروح باقنا هنا بنام بحر كسو غيب قلم يقولوا هذا كسو بحر إن شاء الله تعالى أيضا مجانا مقدس الله قد إحنا فرماج إسكسرنا قولي شرعي هو فرحان
خضروا ديب فرعوا او ديب قولي راي بشير بشيرو بشير جدتك كنا فاصلنا محمد عبد الله فرماجه هدول جوك بحواي يجين او يجين سيسوانا حرام دي او تاسكيسو جواب واي عند قاي شاتي سي جرس هو واي واستغالين وانا سبرنا هنا نقول كبراند دتك اسكلا انو هراي وانا عذيريو وانا معك دريك تايردا waxa ka dinad ku suleys xaafad fiyata kale tarbiyada saxaab tarbiyada